meelay aadi doonto xaajada alla og meelay aadi doonto xaajadan alla og shalay muxuu lahaa waxba la harimeeno waxaan leenahay tol baan leenahay hiil baa noo soo gurmaday maanta kuwaas aaway xagee aadeen tolkaa shalay aad ku faanaysay maanta aaway lacagta 5 bilyan oo Soomaali lagu leeyahay deynta xamar iyo aageeda ku baxday iyo Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku baxday wuxuu ku leeyahay lacagta deynta ay bixiyaan beesha caalamka waxa qaata xamar iyo Hargeysa isagoo markaasi wuxuu ugu jeedaa lacagtaasi waxa lagu leeyahay hawiye iyo isaaq ayuu loo jeedaa hadalka Somaliland inta ay kuwan ay haysato ka sugin inay ciishooto kuwan wali isma gaarin ciyaartu markaan waxay maraysaa half time ki dambe waxa hartay kala bar ayaa hartay marka inay isdhiibto maahan ciyaarta ciyaar ciidankan guryaha iyaga duminaya dadka iyaga laynaya hana laga dulqaado waxa aanu doonayna waxa weey markaas bay wada hadal imaan kara markaas aanu ka hadli karaynaa dhibaatada loo geystay waxay rabaan markii la geeyo oog iyo meelahaas waxay rabaan inay yiraahdaan dhulkeena waa haysanaa daafac xiranay waxa rabtiin sameeya cida ka aqli yar midaasi au sheegan idinku meel lix ayaa ka timaadeene Somaliland waxay u diyaar garooday in matalanba Soomaaliya haday soo raacdo inay iska celiso ayay u diyaar garooday adigana maamul yaro oo majarteen ah ayaa dabada ka soo riixaya hadii ciidanka Somaliland laga saarayo gooja cade intaas qof ma aysan ku dhimateenba waxay rabaan 5 bilyan ay bilaqaysteen in laga baxsho oo laga cafiyo tuugayaan international community barayaan in laga cafiyo 5 bilyan oo dollar lagu ciyaaray Xamsaad Barre dadku laha maskaxda ay ka xanuunsan yihiin waa dadkan oo kale qabiil haduu wax tarayo ama qabiil aad wax ku doonayso buu hodle waa deegaankaaga waxaana ka taagan calan Ethiopia ka taagan waxa tirahdaan Somaliland waxay tiraahdaa dhulka ma guuree dadka guura hadda idin leenahay dhulka ma guuree dadka guura meeshii Puntland ay ahayd waxa ka jirta busaaradii ugu xumeed ayaa ka jirta markaan in dadku ay socnaan in yar ayay u jiraan kadib markii ay soo wajahday gaajo iyo busaarad iyo maamul xumo ka jirta Puntland gudaheeda xitaa magaalada dhameeda caasimadda waa ahayd Garowe saakay waxa la wareegay ciidamo gudoosan oo ka cabanaya mushaar la'aan waxay xirteen labadii control magaalada ayay xirteen halkaas ayay gawaarida halkaas socota kuwa u socda Boosaaso iyo kuwa u socda Koonfurta Soomaaliya halkaas ayay lacagta ugu qaadanayaan kadib markii ay ka waayeen mushaaradkoodii ay ku lahaayeen maamulka Puntland iyo siciidaniga hogaamiya Puntland maalmo ka hor ayay ahayd sidaan oo kale markii ay ciidamo kale oo gudoosan oo ka cabanaya mushaar la'aan ay xirteen controlka gaalkacyo dhawaana waxaad filan doontaan shaqaalaha rayidka oo ka cabanaya mushaar la'aan kadib markii la siin waayay mushaaradkoodii muddo ka badan 4 bilood iyo 5 bilood Puntland oo markii hore dhaqaalaheedu iska yaraa ayaa waxay gashatay kab ka weyn kadib markii ay faragashatay arrimaha siyaasadda gudaha u ah Somaliland ayagoo halkaasna ku bixinaya lacago si loo qalqalgeliyo siyaasadda iyo amniga Somaliland balse ayada siyaasadeeda iyo maamulkoodii ayaa qalqal markaan ku jira kadib markii ay xitaa bixin kari waayeen mushaaradka ciidamada iyo mushaaradka shaqaalaha rayidka ah Puntland ayaa dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinaysa dagaalka laasacnood 4 bilood ama 5 bilood ugu dambeysay ayadoo dekada Boosaaso qayb kamid ah canshuurta ka soo xaroota ku bixin jirtay dagaalka iyo ciidamada halkaasi ku sugan balse maalmo ugu dambeeyay ayaa la sheegay in dhaqaalihii ay ka jaratay ciidamada halkaasi ku sugan iyo dagaaladii ka socda laasacnood kadib markii ay soo wajahday dhaqaale yari baahsan midaasna waxa uu soo dheer in Puntland ama siciidaniga Puntland hogaamiya uu markaani u jahaystay dhankaas iyo ololaha siyaasadda iyo kaambeenka golaha deegaanka gobolada Puntland midaas ayaa sababtay in dhaqaalaha Puntland uu hoos u dhaco kadibna ciidamada ku sugnaa laasacnada uu ka jarto dhaqaalaha iyo ciidankii gudaha ugu jiray Puntland iyo shaqaalaha rayidka ah ee halkaas ku sugan Xamsaad Barre dadku lahaa siyaasiyiinta ka soo jeeda Puntland maskaxda ayay ka xanuunsan yihiin waa ninkan kale hadda ninkan wuxuu leeyahay ila dhageysta go'aanna ka gaaro ninkan wuxuu leeyahay wuxuu ku hadlay mas'uulkan wasiirkii qorsheynta ahay kelmad baan rabaa inaan ka dhaho marka deynta iyo caafimaadkeeda kelmad baan rabaa ka dhaho kelmadu waxa weeye
qaadateen waxay ahayd lacag mashaariic lagu fuliyey mashaariicdaasi annaga reer Puntland haddaan nahay hal mashruuc annaga ma soo gaarin mashaariicda Puntland aan ugu nimaanay waxay ahayd dekada Boosaaso iyo laamigeeda fuunda Itaaliya lagu bixiyay Talyaaniga deeq ku baxsadayn ma ahayn lacagta 5 bilyan oo Soomaali lagu leeyahay deynta xamar iyo aageeda ku baxday iyo Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku baxday wax naga soo gaaray annaga haddaan reer Puntland nahay ma jirin maanta maxaa la rabaa marka dowladda Xasan Sheikh waxay rabtaa deyntii hore mashaariicdii lagu fuliyay intay bilaqaysteen oo ay doofiyeen oo Dubai iskaraab ka soo gateen 200 bilyan oo cusub in la qaato waxay rabaan 5 bilyan ay bilaqaysteen in laga baxsho oo laga cafiyo tuugayaan international community barayaan in laga cafiyo 5 bilyan oo dollar oo lagu ciyaaray oo 200 bilyan oo cusub intii la qaato annaga waxbana la ka siin Soomaalida kale lagu burburiyo war waxaas yeelaynaa ma waxaana la kala tashan baan yeelaynaa ma waxayna wax ka ogeyn baan yeelaynaa ma waxa rabtaan deyn magaciina lagu qaato idinka ogeyn ma deyn baa rabtaan in la idinku qaato idinka warka hayn war dowladdiina Puntland warka hayn baa rabtaan deyn la idinku qaato annagu waxaana dadkeena tan u ahayn ma yeelayno waxaan ognahay waxa ka imaan doonana ma yeelayno Xamse Cabdi Barre dadku lahaa maskaxda ay ka xanuunsan yihiin waa dadkan oo kale hadda ninkan wuxuu sheeganayaa inuu yahay wasiirka qorsheynta Puntland sidoo hadlayna waad maqashaan wuxuu ku leeyahay lacagta deynta ay bixiyaan beesha caalamka waxa qaata xamar iyo Hargeysa isagoo markaasi wuxuu ugu jeedaa lacagtaasi waxa lagu leeyahay hawiye iyo isaaq ayuu la jeedaa hadalka balse isagu wuxuu qorsan yahay in lacagtaasi ama Puntland laga hirgeliyay mashaariic ay ka mid tahay dekada Boosaaso iyo laamiga dheer ee xiriiriya koonfurta Soomaaliya iyo mashruucyo fara badan midaasi uu qorsan yahay balse deyntan isagu ma qorsana hadaba ninkan in daacad ay ka tahay in kale anigu ma garanayo laakiin lacagtan deynta lagu leeyahay Soomaaliya ma ahan mid lagu leeyahay cid gaar ah lacagta deynta ah lacag hadda ma ahan waa dowladihii kala dambeeyay ee siyaad bare ka soo bilow ilaa sanadkan la joogo lacag lagu leeyahay ma aha marka ma ahan inuu yiraahdo lacagtaas waxa lagu leeyahay hawiye iyo isaaq taasi sax ma aha mashaariicdan kale oo faraha badan leh ka socdo gudaha Puntland hadii ahaan lahayd laamiyada hadii ahaan lahayd dhismaha mashaariicda kala duwan hadii ahaan lahayd dekadaha hadii aan la garoomada lacagtaas xagga laga keenaa oo ay ka soo qaataan Muqdisho iyo Xamar ay ka soo qaataan saamiga ay ugu helaan maamul goboleedyada lacagtaasi xagga laga keenaa midda kale Somaliland warkeeda way cadeysatayada waxay tiri anaga waxay tiri 60kii ayaa xirmada qaadanay kadibna walaalaheena Soomaaliyeed ayaa ku biirnay kadibna waa isfahmi weynay 90kii dib ayaa ula laabanay madax banaanadeeni iyo dawladeeni meel gaar ah ka istaagnay Soomaaliyana kama mid nihin waxna ku darsameeno arrimaha Soomaaliyana faragashameeno warkeeda Somaliland way cadeysatay laakiin idinka Soomaaliyana kamina bixin waa ku jirtaan haddana dhibka iyo foodada iyo qalaasaha idinka kowka ah marka isma qabanayso inaad tiraahdaan anaga waxaan nahay maamul goboleed ka tirsan federaalka Soomaaliya haddana inaad saa tiraahdaan wax is qabta maaha hadal yeelka waa la cadeystaa namayo haddaad wax isku haystaan waxaad tiraahdaan anaga Soomaali kama mid nihin aysan ahayn maamul goboleedyadiina ka mid noqdo wax la qaybsada Soomaalida kale haddana halkaas aan ku soo dhaafo Puntland iyo arrimaheeda garaadkii mastargala dagaalka oo maalintii ciida dhahayay hadda kadib waxba la harimeeno awal waa turayna hadda kadibna ma turi doono Somaliland ayaa weerarayna weerarkuna joogto ayuu noo ahaan doonaa maantana uu calacalaya wuxuu leeyahay beesha caalamka ay naga soo gaara ciidankan Somaliland naga dulqaada oo naga fogeeya ayuu taagaya markaana beesha caalamka imisa bilood ayay ku bariyay oo kula heed nabadda qaado Somaliland nabad ayay rabtaaye adiguna nabadda qaado adiguna nabadna waa diiday wad lahayd Somaliland la hadlimeeno nabadina adiga meel fog ka tuure Somaliland imisa bilood ayay la sacno gudaheeda fadhisay oo lahayd la hadla marka adeer inaan maanta aad calaacasho oo laga fiican yahay kartideeda yeelo ila daba muuqaalkan
iyo siduu calacalaya meelay aadi doonto xaajada alla og meelay aadi doonto xaajadan alla og waxaanu adduunka u sheegaynaa ciidankan guryaha iyaga duminaya dadka iyaga laynaya hana laga dulqaado waxaanu doonaynaa waxa wey markaas uunbay wada hadal imaan karaa markaasaanu ka hadli karaynaa dhibaatada naloo geystay mid af leh mid adin leh markaasaanu ama cafin karaynaa ama aanu aarsan karaynaa laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhagloo maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal oo loo dhexaynayaa ma jiro aad moodaa ilaahay dukure iyana ayan waxba la hadhayn qaniya kaa goysa waxaanu caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeedba aanu u sheegaynaa dulqaadka waa naga soo dhamaaday intaanu dulqaadan karaynay waanu dulqaadanay waanu awoodnaa tol baanu u leenahay allah caadilo guushana siiyay baynu haysanaa wixii bishan ramadaan ka dambeeya ilaahay ku rooyahay maanta ciida la iiday waxba la hareemeyno waxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer Sheekh Isxaaq innaba aqli uu ku dambeeyo aruurahooda hanaga kaxaystaan maanta waxay maraysaa in mastargala dagaalka markuu arkay xanuunka xabadda ay leedahay iyo colaadda dhibka ay leedahay inuu yiraahdo beesha caalamka ciidanka Somaliland naga dulqaada shalay muxuu lahaa waxba la hareemeyno waxaan leenahay tol baan leenahay hiil baa noo soo gurmaday maanta kuwaas aaway xagee aadeen tolkaa shalay aad ku faanaysay maanta aaway awal baa qiyaali cidlaah ayaad sawratay balse tani waa reality-ga middan Somaliland inta ay kuwan ay haysato ha ka sugin inay ciishooto kuwan weli isma gaarin ciyaartu markaan waxay maraysaa half time-kii dambe waxaa hartay kala bar ayaa hartay marka inay isdhiibto maahan ciyaar adiga shalay bilaabay ciyaartee maanta ciyaarta dhameystiro Somaliland iyo ciidanka shaqo qaran is arka shalay Saudi hanjabaye Saudi laha waxaan la harayna ma jirto oog baan tagaynaa burcaan qabsanaynaa maanta se haddii runta ku awood sheegtay adeer iska qaro guul daradaada Somaliland waa dawladdaadii dhulkana adaa iska leh laakiin nidaamka ka jira oo Somaliland deegaanka laguma haysto Somaliland waa dawladdaadii Somaliland u noqo la hadal la heshii waxa tabanayso u sheego qabiil hadduu wax tarayo ama qabiil aad wax ku doonayso buu hodle waa deegaankaaga waxaana ka taagan calan Ethiopia ka taagan marka indhaha waxba iska tirin Somaliland haas oran awood ma leh awood ay ku difaacado dhulkeeda ma lahaas dhihin 30 sano ayay diyaarsanaysay ciidankii ay isaga celin lahayd cadawga ku soo duula idinku meel lix ayaa ka timaadeene Somaliland waxay u diyaar garowday in matalanba Soomaaliya haday soo raacdo inay iska celiso ayay u diyaar garowday adigana maamul yaro oo majarteen ah ayaa dabada ka soo riixaya aqliga ha shaqeeyo dadkiina waa dhameysay shacabkii iyo maatidina waad barakicisay dib u soo laabo inta nool ayaa nolol u baahan adeer aqliga ha shaqeeyo wuxuu kaloo yiri ciidanka hala qaado oo meel kale hala geeyo markaas kadib ayaan wada hadli doonaa horta odagan ciyaal buu u sheekeenayaa maalintii dhowda markii ay laasacnadu imaanayeen waxay Somaliland waxay ugu sheekeeyeen nabad ayaan raadinaynaa dadka ayaan dejinaynaa markaas loo ogolaaday inay gudaha magaalada u soo galaan kadibna waxay sameeyeen qof walba u jeedaa haddana wuxuu leeyahay markii ay awood kale ay waayeen beesha caalamka wuxuu ku leeyihiin ciidanka Somaliland hala fogeeyo si aan u wada hadalno markaas ama u heshiinaynaa ama waa dagaalaynaa waxa soconaya maaha midaasi haddii ciidanka Somaliland laga saarayo gooja cadde intaasoo qof ma aysan ku dhimateenba har cad ayay ka tegi lahayd Somaliland meeshaasi midda kale Somaliland ayadoo gudaha magaalada ku jirta
ay yiraahdeen kuwan garaadada isku sheegaya ciidanka gudaha magaalada laga saaro markii laga saarana haddana waxay leeyihiin gooja cadaan laga saaro oo ooga la geeyo waxaas wax aqli shaqana maaha waxay rabaan markii la geeyo oog iyo meelahaas waxay rabaan inay yiraahdaan dhulkeena waa haysanaa daafac xiranay waxa rabtiin sameeya cida ka aqli yar midaasi ay u sheegaan gooja cadaan joogayna halkaas ayaa ka dagaalameena idinku markaa daashaan idinka guriyihiina kala aadi doona dhulkana waa Somaliland qofkii aan Somaliland aan rabina ha ka guuro meesha rabo isaga ha tago hadda idinku celinaya waxa tirahdaan Somaliland waxay tiraahdaa dhulka ma guure dadka guura hadda idin leenahay dhulka ma guure dadka guura haddaad meel kale u socotaan guura gawaari ayaa idin keenaynaa iska buuxsha meesha rabtaan qabta